orod ma gali karno عادي ma gali karno ma gali maanta magaalada waad ogtiin xaaladda ka jirto magaalada maanta waa magaalo aad u qurux badan dhismaysa ganacsiyo cusub lagu soo kordhinayo dad baa maal gashanaya haddii maanta ka waran dadka magaalada laga dudumiyo Matanha Production. Matanha Pro. Hankon you Ahmed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين ونقص مالي ونقص دور ونقص حكستو انت ونقص موقع كده عفمات كده وانا سانجلي ينزل يدود مركشنتي مركت الله ينك خذ الحمد لله رب العالمين انا عفمات قواد وحرجنا ان عفمات خبطو هذه مركو غورس داوني سيتانا سبسكرايب كجك يغسي ان شاء الله تعالى واحد باي هري اديغون wax ma ka dhibayso aan wax weyn ba ii tahay kaleelab aad baan idin jeclahay okay sad qoraalka hoose ku soo aragteen muqdisho xilligan iyo xilli u dhow baad dagaal uma baahna muqdisho halkeedu dagaal ma aha muqdisho maanta in laga qaxo ma aha muqdisho maanta in ay dagaal gashan ma aha muqdisho dagaal way ka soo daashay 30 sano miyaa ku dhawaad muqdisho waxa ka socdo waa dagaal marka waxaan rabnaa muqdisho dagaal uma baahna waxaan la hadlayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta buunbuuninaysa ama maanta u baahan in magaalada laga qaxo ee dalka ama magaalada aan joogin horta waxaan waa siyaasad sideeduna heshiiskeeduna daqiiqad ma qaadanayo dagaalkeeduna daqiiqad ma qaadanayo midaas ina ogaano horta dhalinyaro hadii aan nahay midaas inaan maankeen aan ku hayno maanta magaaladan uma baahna in laga qaxo maanta uma baahna magaaladan in la dudumiyo maanta uma baahna magaaladan in xaalad kale ay gasho madaxdu way isqaban karaan laakiin madaxdu haday isqabtaan waxay leeyihiin xaal iyo waxay leeyihiin dastuur iyo waxay ku dhaqmaan laakiin anaka dhalinyaro hadii aan nahay waxaan leenahay inaan ka shaqeyno nabadda sidan kaga shaqeynayna nabadda in aan waxaan socdo aan damino aan buunbuunin maanta magaalada waad ogtiin xaaladda ka jirto magaalada maanta waa magaalo aad u qurux badan dhismaysa ganacsiyo cusub lagu soo kordhinayo dad baa maal gashanaya haddii maanta ka waran dadka magaalada laga dudumiyo ee dagaal la dhexgeliyo ee waxaan jirin loo sheego ee qabiil la buufiyo wax qurux badan ma aha dhalinyaro ahaana wax anagu inoo wanaagsan ma aha xaqiiqan idin kala hadlaa maanta magaaladan uma baahna in xabad ay ka dhacdo magaaladan maanta waxaan u baahannahay waa nabad oo kaliya nabadna waxaana sii kar alla subxaanahu wa tacaala ka sukowna nabadda gacmeheen anakaa ku raadi karna walaalayaal colaad waa laga soo daalay dib aan u laabano burburkii dalka qabiil baa la isku baabi'iyey suxun baa la seelay qabiil baa qabiil ku doolay wax aan isku reeban ma jirto alxamdulillah rabbil caalamiin 10 kan sana waxaan dareemaynaa caaw nabadeed haddana 10 kan sana caawdi aan dareemaynay miyaa nagala baabi'ina miyaa si xun nagala yeelaa miyaa nala baabi'ina miyaa niyad nagala dilaa war hadda fiir anagu tahriib waan ka baaqsanay inaan dalka ka tagna marabno dalka inaan ka dhoofno marabno inaan baxno marabno waxa kaliya aan rabno waxay tahay
وإن النبض أن كنا نولان نبض سيدا وقلنا نولان كرنا وإن مقالدينو عادي إنه أهاتا وإن مقالدينو حبط إيسان كدعن وإن مقالدينو إنه قروح بدناتا لكن مقالدينو كورن هدي أن حبط أهور سيدنا هدي سياسيين تان إدن تقارك آلي هدي أن لسفنا كورن آلي سعبنو والسياسيين تهال عنق وإيد ألين مقالدو كما نولا حتى صومالي كما نولا dadka dhimanaya waa anaka dadka baabaay waa anaka dadka hubka isku dhiibay waa anaka dadka la bahdilay waa anaka dadka qaxgalay waa anaka dadka ilmooda baabaay waa anaka waad ogtihiin maalmihii u dambeeyay ee dagaalada magaalada ka jireen ee badbaado qaran iyo blaay la dhahay waa ogeeyeen xaaladdu sida ahayd inta yariista aan qaxnay ee baxeen waad ogeed ramadaanki xaalad adag baan galnay marka walaalayaal dhalinyaro haddii aan nahay anaku dagaal uma baahneen waxaan u baahannahay nabad in wadanka lagu soo dabaalo nabad sidoo loogu soo dabaali karaa oo in la isfahmaa war maanta fiiri qof waliba hadduu qori qaato xabad haddii inta laga soo rido inta xabad haddii laga soo rido war xabadda ma taqaano ismaaciil maskiin waay ma taqaano ka wareeji dagaal ma ku jira nabadoo rabaa ma taqaano calaa duulay kuu soo aadi maxaa kuu soo aadi waxyaabaha kale meelaha ka socdo ma dareemayaan xabaddu mar hadday soo baxdo indha ma lahan marka magaaladan quruxda badan yaan nagala duduminin magaaladan yaanan dib noola celinin tusaalahaan fiiri maka almukarama taleex ilaa lambar 4 ilaa ay dabka fiiri quruxda ka jirta maanta haddii ka waran xabad lala aado wala dhaho xabad baan bilaabeynaa xabad baan rideynaa xaalad sidaas nooma noqonayso xaalada sidaas nooguma qurux badnaanayso dhalinyaro aqliga aan ka shaqeyno war kan facebook wax kusoo qoraayo dibadda u jooga dalka ma joogo kan wax horinaayo dalka ma joogo laba dhinac la kala aado war fiiri inta laba dhinac la kala aadi lahaa war kan waa qaldan tahay joog haddii la dhaho kanna waa qaldan tahay joog haddii la dhaho only way joogayaan laakiin xabad iyo inta ka soo qabo inta ka geli saangeel inta burburi neeva ma qurux badna noloshaanu sidaas kuma wanaagsanaanayso nabadna kuma helayno noloshaanu sidaas kuma wanaagsanaanayso nabadna ma helayno daawadayaal yaana la magaaladan yaan nagala duduminin magaaladan yaan nagala duduminin waa inta oo kaliya waxaan rabno in magaaladan inay nabad inoo ahaato dagaal waan kasoo daalnay ma ka tahriibnaa magaaladan oo miskaga baxnaa tahriib ma aan aadnaa ma ka tagnaa wadanka ma ka tagnaa wadamo shisheeye ma tagnaa meelahaas qaxooti ma ku noqonaa walaalayaal wadankeenan aaminay wadankeenan ku kalsoonahay magaaladeena jecelnahay yaan nagala burburinin yaan nagala duduminin aad baan idin jeclahay daawadayaal muuqaalka halkan ku koobaa insha allahu tacaala waxaan aadaynaa